بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، أولا الله سبحانه وتعالى يا مهضله الله إنه سورة جليي إنه اسبطال كان إنه هرجله هير كان مريا الله سنو مهد علينا مركل الله بعض وحنو مهد علينا يا ضمان غربة شوكته أيوه الرئيسه خديجة فارح وضي سعاد وهابي يا محمد جوهرار iyo dhammaan qurba joogta oo dhan oo magacyadooda aan soo koobi karin oo ka qayb qaatay. sidoo kale waxaan u mahad celinayaa hay'adda Adeeso oo iyaduna qalabkii shaybaadhka keentay aad bay u mahadsan yihiin. waxaan leeyahay shukran jazaakumullahu khayran, shaqo fiican baad qabateen. cusbitaaladu waa waxyaabaha ugu muhiimsan oo halbowlaha u ah bulshada iyo caafimaadka. wax fiican baa la qabtay runtii, wax badanna way dhiman yihiin soo odayaashu ay ka sheekeeyay ka warameen oo ka warbixiyeen. waxa dhiman insha Allah waxaan rajaynaynaa inay inoo hirgalaan biinlaahi tabaaraka wa tacaala. walaalayaal waxa weeyaan cusbitaalada, masaajidada, wadooyinka waxay ka mid yihiin goobaha khayrka oo ay ku baxdo sadaqada jaariga. qofka la baxaya waalidkii waxa uu la baxaya, waxa weeyaan cusbitaalka wuxuu ka mid yahay meelaha ugu fadliga badan oo wax lagu bixiyo ayuu ka mid yahay. waxa weeyaan waa meel bulshadii loogu adeegayo. ceelbu waa deegaan aad iyo aad u ballaaran oo reer miyi aad u fara badan ay ku xidhan yihiin. haddana waxa weeyaan ma laha goobtan caafimaad ee adeegyadaas oo dhan qaban karta ma lahayn. annaga ceelbu ku nool baahida iyo dhibka maartay ka jira annaga dareemayna. runtii markii lagu yiraahdo hooyo foolanaysa ama qof maaragtay wax yar oo cusbitaalku u qaban lahaa inuu kharash badan u galo meelo fogfog u aado, waad garan kartaan dhibka ka iman kara. idina waa nala dareemaysaan. marka waxaan leenahay sadaqal jaariya weeyaan. waxa weeye weli waxaynu ku jirnaa bishii Shacbaan oo Ramadaan baa soo socota. waa xilligii sadaqada la laba jibaari jiray. khayraadka oo dhan way laba jibaarmay adcaaf kathiir ayay noqonayaan. qof walba ka faa'iideyso fursadda qaaliga ah, ugana faa'iideyso waxa weeyaan cusbitaalka iyo sidoo ku dhaqaaqi lahaa. qofkii xoog ku darsaday, qofkii waxa weeyaan $1 ku darsaday, kii 50 sibir ku darsaday, kii ka badan ku darsaday, kii maaragtay waxa weeyaan maskax iyo cilmi ku darsaday, intaba waxay u tahay sadaqal jaariya. ilaahay naxariis jannaha ka waraabi Axmed Cali Salaad gudoomiyihii hore ee magaalada waxa weey maalintii la dhagax dhigayay wuu joogay. raggii ka shaqeynayay ee dhagax dhigayay ee waday buu ahaa. maanta wayna ka hooseeyaa. intaas ee shaqo ah ee meesha ka socota ee khayra waxay u tahay sadaqa jaariya u soconaysa. adduunkana lagu waari maayo. waxa weeyaan qof walba aakhiradaada u hormarso. ceel buuhna mashruuci ugu weynaa ee laga hirgeliyo deegaanka qurba joogteeda dadka deegaanka iskaashanayaan weeye. insha Allah ilaahay subxaanahu wa ta'ala waxaan u weydiinayaa cid kasta oo ka qayb qaadatay oo muruq ku bixisay oo maal ku bixisay oo dhiirigelin samaysay ilaahay subxaanahu wa ta'ala inuu siiyo ajr iyo xasanaad. ilaahay subxaanahu wa ta'ala uga baryayaa ilaahay sadaqal jaariya inuu uga yeelo. qofka qof gaarsiiya oo isagoo aan shilinka hayn oo yiraahdo halka cusbitaal baa laga dhisayaa, dad baa u baahan, waxa weeyaan waxay u tahay kelimadaas sadaqa u ah. marka ilaahay subxaanahu wa ta'ala sadaqaha uga yeelo. intii la baxdana ilaahay ka aqbalo. ilaahay subxaanahu wa ta'ala ilaahay uga yeelo sadaqadii ay aakhira harsadaan. nabi wuxuu calayhi salaatu wa salaam naarta wax iska xijiya walaw bi shaqi tamrin, timir jeexadna ha ahaatee waxay iska xijiya. marka insha Allah walaalayaal fursadda qaaliga aynu ku soo wajaana ha laga faa'iideysto. intaasaan ku soo koobaya. wassalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh. runta cilmi baaris iyo horumarinta